marka waxa la yaab leh haweenay ficilkeeda ninka xujo ka dhigtay maanta ninkeedii haweenay ninkeeda jeclayd oo ku ooyday qabrigiisa dul fadhiisatay ayuu xujo ka dhigtay wax la yaab runtii weeye cumar bin al-Khattab radiyallahu anhu waxa ka sugan oo thaabit ah bay'atu ridwan بيعدي رضوان لو نشري الله وكيري لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة جيت في سداها عمر روح فرين للجوي ولا شراب مركي وأمير مدحوينها أها تطبع أركي أوسي سعودة وقصة سعودة وحاجة معايا هيين بيوري والله شقي جيت كاس عمر يلي هلا الجوي مركي عمر مدحوينها أها أبو موسى الأشعري أو عراق شوقة أوصف شقي إني أركان نبي له دانيال oo Israa'iili aha oo Faris wadankeeda la geystay oo dhowr boqol sano meyd aha oo guri ku jiro oo sariir dhex dul saaran waxba aan noqonin wuxuu amray Umar wa kitaabka la socdana in la aaso oo la gubo kitaabka ag yaala in la gubo la aaso isagana wuxuu yiri meel aan cidi ogeyn ku aasa asxaabtu waxay sameeyeen habeenkii inta oo qabritay qodeen oo kala bedelan oo dadkii ay moodsiiyeen in kan lagu aasayo يمد ku aaseen kulna way duugeen oo way saabeen waxa soo kale wax daliil ma aha Umar waxa ka sugan ee thaabitki waxa weey inuu la dagaalamay wax alla wixii shirki gaarsiinaya ummadan oo la diriray oo geedkii ridwaan beecadu waa ka dhacday oo geedkii sharay oo gooyay ninka nabiga ana qabrigiisi uu yiraahdo hal qariyo yaa la arki kitaabkii uu ag yaalayna hal gubo ama hal aaso nabigu wuxuu u diiday qabrigiisa iyo qabri qeyrkiiba in laga dhigto masaajid خوفا من المبالغة في تعظيمه إسقوا كيابا إن لقوا حال ليراض وينتيسا والافتتان به إن لقوا فتنوبه فربما أدى ذلك إلى الكفر أرنتها سيني جالسال غيابا قال لما تذكي جالسيسو كما جرى لكثير من الأمم الخالية سيدي ظفر بدن أو تجي أرمها سي أيقود عين أو قال لما ذاس أقبل لابتي قبورها النبي يا صالحين ولا وينيو أو لقوا مبالغة أو لقوا حد قدوه dhismaha qabriga la dhisaahay inuu bannaan yahay oo tusinaya maxaa yeelay rasuulka guriga lagu xabaalay kaliyana ma aha rasuulka khaas ku tahay albani waxa arki doonaa albani wuxuu leeyahay daliilka afraad waxa weeye ijmaacaas oo saxaab rasuulilaahi ay maaragtay ay ku sameeyeen oo ay ku aaseen labadiisii saaxiib ay ku aaseen oo guriga lagu xaasay وسيداس نقونيا marka iyo waliba idkhaalkii masjidka la soo galiyay ka haduu dhismaha masjidnayna soo wax u dhibaynin masjidkii bas ku soo waasiciyeen hadii masjidii qabri aan la isu keeni karin oo sida ibn qayyim uu yiri masjidii qabri isma arki karaan wax diintuna ma ogola الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الوناكسن horta qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu markii uu geeriyooday sallallahu alayhi wasallam waxa lagu aasay gurigiisii waliba qolkii Aisha oo masaajidka dhanka waqooyi kaga yaalay oo ku dhaganaa oo lagu aasay xigmaduna waxay ahayd waxa athar baa la wariyay laga wariyay Abu Bakr Siddiq markii asxaabtu ay ku wareereen nabiga meesha lagu aasayo sida loo qaadahayo ya Abu Bakr wuxuu wariyay nabiga wuxuu ka sheegay calayhi salaatu wasalaam in ambiyadu meeshii ay ku geeriyoodaan lagu aaso oo laga qaadin qolkii marka Aisha ee nabigu deganaan jiray baa nabiga loo qoday qabri looga dhigay lagu aasay halkiiba nabigu ku aasnaa kadibna Abu Bakr oo Aisha abaheed ahaa yaa lagu daray markii 2 sano kadib iyo 4 bilood uu geeriyooday oo uu meesha isagoo khaliifka ummadda uu madaxweyne ka ahaa kadibna Umar baa Abu Bakr ka dambeeyay 10 sano ayuu ummadda xukumayay 6 bilood markii ninkii majuusiga ahaa Iiraaniga ahaa ee gaalka ahaa uu toorida ku dilay yaasna meesha lagu aasay saasi xaaladu ahayd way hawshu way socotay saxaabadii xilligoodii aqlabkoodii way dhamaadeen markii uu yimid al-Walid bin Abd al-Malik bin Marwan bin Hakam al-Aas ninkii loo oran jiray xilliga ahaa Amirul Mu'minin madaxweynaha ahaa waa 90 iyo dhowrtii weeye markii hijradu ahayd 90 iyo dhowr laga soo bilaabo hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadkii 94 meelahaas jalan ay ahayd ayaa ninkaas wuxuu soo faray عمر بن عبد العزيز ومركا كاها غمرتورا كاها مقالة المدينة يا آجيدا وحكو يدي مساجد كالنبي هلا واسعيو او قولالكي نبي قد قناتر انتي اللي ايبيو او ما لا دركيو هلا قصو دارو
arrintaa marka aad baa looga xumaaday dadkii joogay ee taabiciinta ahaa wax asxaab ahoo markaa muctabara ma joogin asxaabta kuwooda ugu dambeeyey 100 sano mayna ka badnay sanadkii boqolaad hijriga maynan dhaafin ana soo jiray meelaha xagga ciraaqi jiray iyo afraad gooni ah way ahaayeen marka waxay sameeyeen masaajidkii hareerihiisii baa guriyihii ku yaallay baa la iibiyey guriyihii marka waxaa ka mid noqday guryihii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu ku jiro qolkii caaisha ee nabigu ku aasnaa salawaatullahi wasalaamu calayh taabiciintu waa diideen arrintaa waa aad bay ugu xumaadeen waxaa ka mid ahaa taabiciinta ka dagaalantay ee aad arrintaa u diiday waxaa ka mid ahaa saciid bin musayib raximahullah waa sayidu taabiciin waa nin qurashi oo makhzuumi ah oo ninkii taabiciinta ugu sarreeyey buu ahaa wuxuu yidhi ibnu kathiir fi lbidaaya wanihaaya markuu ka soo hadlay in taabiciintu arrinta ay ka xumaadeen oo ay xataa cumar qudhiiso cumar bin cabdilcaziiz arrinta ka cagataaleeyey amar la soo siiyey lagu yidhi guryaha iibi oo masaajidka ku dar lagu yidhi يا وحلي ابن كثير ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد سعيد بن المسيب وحو انكري وديدي إن حجرة أما قلك النبي قال سوق لي مساجدك وحول ابن كثير كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا واحد مدانو كي يعبي بيقولي مساجد النبي قبر جيسا لقد يكتب مساجد مركا مساجد كالنبي ما أنت قبر جيسا وكل احترام لكن نبيgu arintaas muuna farin waana diiday asxaabtuna bayna sameeyeen nin madaxweyne ayaa amarka bixiyay su'aal baa la isweydiin karaa waxa la oran karaa oo intii ummadii ka dambeeyay maxay u bedeli waayeen arrimaha waxay bedeli waayeen qolo kastoo timaada waxay ka baqaysay in ay lagu kaco dadku wax iska caadifad badan nabiga la jecel yahay alayhi salaatu wasalaam marka hadii masaajidkii meeshii laga dib looga soo celiyo oo qabrigii banaankiisa halkiisa loo daayo dadka caamada ah xilli dambe yimid waxay u malayn in masaajidka nabiga la fargeliyay mana ay dadku badana ma wada fahmayaan masaajidka nabigu calayhi salaatu wasalaam in uu halkan uusan ku joogin uu ka durugsanaa markii hore sida awgeed hada markii uu ka hadlay nawawi wuxuu leeyahay rahimahullah markii uu ka hadlay qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu yiri إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا نبي وحودي ذي قبر جيسا هي قبر غير كيما إن لقد المساجد خوفا من المبالغة في تعظيمه إسوا كيابا إن لقوح اللي راض وين تيسا والافتتان به إن لقوف نوبه فربما أدى ذلك إلى الكفر أرنتها سيني جالسا لغيابا قال لما تسكي جالسيسو كما جرى لكثير من الأمم الخالية sidii ummado fara badan oo tagay arrimahaasi ay ugu dhaceen oo gaalnimadaas ay uga bilaabatay quburaha nabiyada iyo saalixiinta oo la weyneeyo oo lagu mubaalaqoodo lagu xadgudbo kadib wuxuu sii sheegay markaa masaajidkii markii qolkii la soo geliyay Caaisha masaajidkii lagu daray in qaab saddex gees loo dhisay si aan loo qaabilin guud ahaan dadku hadda فعل النبي قول النبي عليه الصلاة والسلام وديدي إن لو درو إن لقد اسم مساجد قبرية النبي إيه ما أنت مساجد كيسو إن قبر كيسو وكدو ليالو مركع تو اسكوليد والله ما الريموت اسقاده كريم وي waxa sakanay maadaama ninka madaxweynaha xilliga arinta uu sameeyay markasta in ninkii yimaadeen madaxweynaha ka dambeeyay wuxuu ka cabsaday in lagu kaco oo arintaas laga soo horjeesado sidii nabigu baa salawaatullaahi wa salaamu alayhi uu damcay markii uu joogay in kacbada uu halkii ibraahim uu ka ku joojiyay kacbada inuu geeyo ilaa quraash markay kacbada dhistay xilligii jaahiliyada nimankii quraash ee gaalada ahaa xilligii gaalada ahaayeen kacbada dib u dhiseen wali waxay ku ballameen in shay booli oo xaraam aan la soo gelinin naag dhilaa xoolaha laga soo qaaday aan la gelinin nin tuuga wixii aan la gelinin ee ilaahay loogu dhawaaday aaminsanaayeen ilaa waxay aaminsanaayeen ibraahim diintiisa haystaan bay moodayeen marka dhaqaalihii xalaasha ahaa baa ka gaabtay xoolihii xaraamtaana way diideen markaasa hadda meeshan halkan saas bisha aad moodo ee la dhaho xijir ismaaciil la yidhaahdo halkaas ku joogay oo ay kacbadu gaadhsanayd way ka soo gaabatay marka nabigu Caaisha wuxuu ku yiri waxaan damcay buu yiri walawla anna qawmaka hadithu ahdi bi jahiliyyati markuu lahaa hadithu ayna jahiliyya ku dhaweyn oo gaalnimo ku soo dhawaanin waxaan jeclaan lahaa in kacbada sidii ibraahim meeshiisii aan gaarsiiyo laba albaabna aanu yeelo
إلا تلقى يجا باب كرو قضيه نكي دونان جلين شري كي دونان ودي شري مركا وكيا بي نبي وكعب صدي إن شعوبته أي وحى دريمان حلقي مركا أبو بكر موسى بدلين ومدحوينها النقضي عمر موسى بدلين عثمان ما بدلين علي موسى بدلين مركي ويمن عبد الله بن الزبير أي وحي أنو مانتا نقالنا وان هايستا dadkuna diintii way qaateen oo way fahmeen idii mayso oo ka soo horjeedi mayso masaajidkii marka intuu kacbadii dumiyay ayuu sidii nabigu sifeeyay ee habrintii Abdullah habrintii uu ka wariyay Aisha ee nabiga uga sheegtay ayuu u dhisay markuu sidii u dhisay Abdullah waa kii marka dagaal dhacay meesha lagu dilay isaga iyo Abdul Malik bin Marwan isku dagaalameen Hajjaj bin Yusuf markuu meesha qabsaday isaga madax ka ahaa ciidankii meesha yimid waa kii marka ka dalbaday أمير المؤمنين أو عبد الملك بن مروان يا حكويري عبد الله بن الزبير كعبدي بسيدة أو دسي وحنا كوري حديث هبرتي سيدة مؤد دايا وحوري ورانو إن الزبير يوحى وقعمها لك على مدون إنه دي كعبدة سيد وعلي سيدي بعد تولد دمية يا برتي اللي وعلي مركي بنو أمية لقى تخلصي بنو العباس أي مادين أي أبو جعفر المنصور وحو لا تشضي الإمام مالك بن أنس وحكولي بك واحد كورنتا كعبده ماشي مكو عليا ماشي مكعبده مكو عليا وحولي امير المؤمنين كعبده هكدغ بوري ميل كو عياران بقرده او كلبا كي مادا وديب بدلو كدا كعبده هيبديدا قلبته ودا كعبده marka waxaan ugu jeedaa rasuulku salawaatu الله وسلام عليه النص عضبو ku xarrimay in masaajid qabri masaajid laga duliso xaramu فعلك مركب ما أنت كتاجن مساجد النبي عليه الصلاة والسلام نبي مونا أمرين نبي مونا فارين نين مدحوينا أرنت سميي ضد كنا نين بدولة الصوت ما ده وحكي بقيسي ضد كوينا أرنتاس أي كدي ديان أو ديدان عمل لو بدي هاي نبي كنا وجعليهن عليه الصلاة والسلام ما أنا فاهم أيان ماشي إنه واحد حرام يكون مركا سدا أي هي تاريخ ذا اسمها laga dul dhisay masaajidka nabiga waa la soo galay masaajidkii baa la waasiciyay in waxa la baaday xagga ay xagga loo kala durkiyo marka qolka nabigu guriga masaajid ku dhaganaa marka wuxuu soo galay maadaama ninkaasi yiri masaajidka waan waasicinaya inuu dhanka koonfur kaliya kulli u wada waasiciyo uu diiday wuxuu rabay in gees kastaba uu waasiciyo isla kaada masaajidku laakiin ficil fiican ma ahayn ficil fiican oo sax ah ma ahayn waayo naska nabiga uu nabi ku hadlay ayaa ka soo horjeeda arintaas uu sameeyay walid ibn abdullah ficilku uu sameeyay xujama noqon karo wax xujama ah waayo saxaabi nabi ma aha saxaabina ma aha aduu hatta saxaabi ahaan la qowlkiisu xujama ahaade iska badaa inuu marka nin iska madaxweyne oo hode wax badan oo sameynaya maartay dambi ah sameynay way amarka marka uu fuliyay isagu sameeyay amar isaga ka soo fulay buu ahaa taabiciinta iyo raggii joogana waa diideen laakiin amar buu dul dhigay ayna diidi karin oo ah أمر الدولتين أي الجفري أرنتاس مركا رسولك عليه الصلاة والسلام قبرجيس مركي وماشى كواسنا وجوه الرئيسي جورجيسي بالواسي مساجدكم موسى جارتي سنين وكو قربيالي وكو دجنا أكتسوها سوي أرتو قبورها وحلقات السوال الذي خيمت ميل لقى تاجي هذا يسوي هواني بسوح جيست هواني نكادي أي شعلي تقول انتي ما تندك هذول الستة أجمعت كوير حذي بود حجة كديجني مرجع حلايا بله هوين الفعل كذا نك حجة كديجت ما أنت نك هذه هوين نك هذا شعلي وكو إذا قبل يزول فرستي أي حجة كديجتي وحلايا مرنتي ويا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكى السجن أو ثابتة بيعة الرضوان بيعدي رضوان لو نشري الله وكيري لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة جيت في سداها عمر روح فرين للجوي ولا شراب مركي وأمير مدحوينها أها تطبع أركي أسي سعودة وكسر سعودة وحاجة معايا هيين بيقولي والله شقي جيت كاس عمر يلي هلا الجوي مركي عمر مدحوينها أها أبو موسى الأشعري أو عراق شوقة أوصف شقي إني أركان نبي له دانيال أو إسرائيلي أها أو فارس وطن كذا اللي جيستي أو رب قلا صنع ميد أها أو جوري كتير أو سرد دول سارن هذا النقطين وهو عمر وكتاب الله سبحانه إن لعاصه أو لجبه كتاب أجي الله إن لجبه لعاصه السكر وحولي مال عن عيد أوجين كؤاسة أصحابته واحد سميان هبين كي
intaa oo qabrintay qodeen oo kala bedelan oo dadkii ay moodsiiyeen in kan lagu aasayo yay mid ku aaseen kulna way duugeen oo way saysaabeen ruwaad kale waxay sheegaysaa in meel biyo marana ay geliyeen oo biyuhu ay maraanba marka cumar khaymad buu ka dhisay qabrigii zaynab khaymada waxaa laga yaabaa in loo taagay cilla markaa taagnayd ama xar jiray sida cusmaan uu ka leeyahay cusmaan baa yowm saa'ifin khaymad meel ka taagay waxaasoo kale wax daliila ma aha cumar waxa ka sugan ee thaabitkii waxa weeye inuu la dagaalamay wax alla wixii shirki gaadhsiinaya ummaddan oo ula diriray oo geedkii ridwaan beecadu ay ka dhacday uu geedkii jaray oo gooyey ninka nabigaana qabrigiisii uu yidhi hala qariyo yaa la arki kitaabkii uu ag yaalayna hala gubo ama hala aaso